سفارة الدولة إثيوبيا كل هذه سوماليلاند ayaa soo qaban qaabisay xuska sanad gurada 25aad ee 20ka Gimbood ee talada laga tuuray xukuumadii fashistiga ahayd ee dargiga. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay xisbiyada umiye wadani ucid wasiirada madaxtooyada arrimaha dibadda gaashaandhiga iyo wasiir ku-xigeen gaashaandhiga jaariyadda Itoobiya ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo gobolada galbeedka Soomaaliland. bilowga munaasabada 25 guurada 20ka Gimbood oo ay dawladda Itoobiya ay u aqoonsatay maalintan inay tahay maalintii laga tuuray talada xukuumadii fashistiga ahayd ee dargiga. waxaa la kooban oo soo dhaweyn iyo ujeedada munaasabada laga leeyahay ka jeediyay General Barhetas Fay konsularka guud ee dawladda Itoobiya ku leedahay magaalada Hargeysa. wuxuu ka warramay qiimaha ay u leedahay maalintani shucuubta dalka Itoobiya 25 guurada 20ka Gimbood oo loo asteeyay inay tahay maalin qaran. Ambassador Barhetas Fay wuxuu ka warramay horumarka Itoobiya ka sameysay dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka iyo mideynta kulamaan bulshada iyo wax wada qabsiga shucuubta qowmiyadaha Itoobiya. የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዚህ አስከፊ ጭቆና ለመላቀቅ የሚችሉበት ብቸኛ አማራጭ በትጥቅ ትግል መፋለም ስለነበረ በኢህአዴግ መሪነት በመራራና እልህ አስጨራሽ ትጥቅ ትግል ፋሽስታዊ የደርግ ስርዓትን በማስወገድ ለረጅም ጊዜ የዘለቀው የጭቆና ዘመን ሙሉ በሙሉ ተወግዶ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሀገራቸው ዘላቂ ሰላምና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገታቸው እንዲፋጠን በነጻ ፍላጎታቸው የተመሰረተ አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ቁርጠኝነታቸውን መተማመናቸውና የገለጹበት ህገ መንግስት የቃል ኪዳናቸው gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiya ana musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay qiimaha ay u leedahay shacabka Itoobiya 25 guurada 20ka Gimbood. waxaan ku amriyeynaa guusha ay gaareen 25 sanadood ee ay maamulayeen dalkooda oo ku amriyeynaa Soomaaliland ahaan waxaan u aragnaa inaan nahay waddan jaara oo nolosha iska kaashanaya dhinaca dhaqaalaha, dhinaca bulsho, dhinaca amni iyo guud ahaan nabadgelyada iyo horumarka waddanka aynu ku noolahay ee Geeska Afrika. waxaan farxada maanta laga ku xasano saashanaadka guuradii dabaaldegaya guushooda xisbiga PRDF iyo dawladda Itoobiya. maanta Soomaaliland iyo Itoobiya ba inay yihiin labada dal oo xiriir xoog leh ka dhaxeeyo dhinaca dhaqaalaha. waxaan filaynaa mustaqbalka dhow in Soomaaliland qayb weyn ka qaadan doonto isku xirka dhaqaalaha labada dal iyadoo aynu filayno dhowrka sane soo socda inuu hirgalo dhabaha la yiraahdo Berbera Corridor oo wado iyo tareenba noqon doona iyo dekada Berbera inay noqoto dekada ugu weyn ee qaybta ugu weyn ee Itoobiya wax kala soo dhigi karto. gudoomiyaha xisbiga ucid Faysal Cali Waraabe oo isaguna munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay sida loogu baahan yahay in la barbar istaago Itoobiya oo noqoto Soomaaliland meesha ay kaga dayato dhinaca horumarka. waxaan aad iyo aad ugu farxanahay inaan maanta ka soo qayb galo sanad guurada 25aad ee intii ay ka dhacday tawradii Itoobiya ee afgamiday taliskii fashistiga ahaa. waxaan hubaal ah in 25 sanadood ay Itoobiya ku talaabsatay horumar aan Afrika u horeeyay lagu qiyaaso imaka one of the fastest growing country in the world ku adduunka dhan marka la barbar dhigo waa double digit intay imaka ay horumarkooda u socdaan. gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani Axmed Muumin Sida isaguna mudaashadadaasi ka hadlay ayaa ku hambaliyay shacabta dalka Itoobiya iyo siday horumarka uga sameeyeen dhinac walba. Safirka Soomaaliya
Somaliland jooga waddanka Ethiopia oo runtii xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo Somaliland iyo Ethiopia runtii qaranka Somaliland iyo waddanka Ethiopia waxa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan oo aan noqdo ama dhinaca ganacsiga dhinaca nabadgelyada iyo jaar aad u wanaagsan taas baa inaga mas'uuliyadda saaran tahay inaynu xiriirka si adkayno دكتور سعد علي الشيري وزير أريمها دبدة وزير مدحتويدا محمود حاشي عبدي أي يجونا تلمامي قيمها أي معلمتنا إثيوبيا أولاد هاي شنية لواتن سنة وإسكاب بدلنا عهر مركا. Today we gathered here to remember the 25th anniversary of the fall of the Derg regime that ruled Ethiopia from 1974 to 1991. But the occasion is not just about remembering the ousting of a brutal regime and remembering those who fell in the liberation campaign. It's also about celebrating 25 years of successful economic, social, and political transformation. 25 years ago, the story from Ethiopia was dominated by natural calamities, starvation, and war. Today, Ethiopia is an African success story of stability and rapid economic growth. wakiilka dowladda Ethiopia u jooga halkan General Babu Tasfaye oo lafdhabar u xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia waxaan jecelahay in aanu maanta oo maalin weyn uga hambalyeeyno walaaladeen shacbiga Ethiopia xukuumadda Ethiopia dhammaantoodba maalinta weyn 25 guuradii 20 Gimbood ee laga tuuray taariikh dalka xukunkii militariga ahaa Ethiopia madax xorriyad lama soo noqon 25 sano ka hor qodobka waan saxayaa inaga la soo noqonay iyagu waxay iska tuureen nidaam dictator nidaam dalka dib u riday oo 17 sano madaxa kaga taagnaa ayay tuureen waxaan leenahay shacbiga Ethiopia ra'iisul wasaaraha Ethiopia madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo xisbiga EPRDF waxaan leenahay hambalyo